qisadan waa qiso jacayl iyo kalsooni, laakiin dhammaadkeedii iyo meeshii u dambeysay ay noqotay mid halis ah oo aad iyo aad u naxdin badan. wiil iyo gabadh ayay dhex martay qisadan jacaylka ku dhisan. qisadan maanta aynu ka warramay walaalayaal, jacaylkii hore waa ka fog tahay, waxayna ku qarqoontay xanuunka adduunyada. qisadani waxay kasoo bilaabatay ama dunteedu ay kasoo bilaabatay jaamacadda, markuu arkay wiilkan gabadhan uu jeclaa inay jaamacadda la dhiganayso. kor buu ka ilaaliyey, aamus buu wax ku tusay, dhaqdhaqaaqiisana waxay ugu tilmaamay. laakiin gabadhu waxay ahay mid adaab iyo akhlaaq leh, weliba meeshii ugu dambaysay wadata. dadka wax isjecel rubamaa laga yaabaa inay isku xadaan aragtida mararka qaarkood, marna socodka iyo qaabka loo dhaqdhaqaaqayo, marna deganaanshaha iyo dhaqdhaqaaq la-aanta. laakiin gabadhan wiilkan kamuusa arag calaamad tilmaamaysa inay la cajabtay. kadib wiilkaani wuu sii siyaadsaday arrimihiisii. jacaylka u qaaday gabadhan maalinba maalinta ka dambaysa wuu kusoo siyaadaa. marar kala duwan wuxuu isku dayay inuu u dhowaado, laakiin natiijada iyo midhaha uu ka helayo waa hal mid, oo wax jawaaba uu ka arkaya ma lahan gabadhaas. arrimo kala duwan buu isku dayay. maalin maalmaha ka mid ah arrintiisii wuu go'aansaday oo wuxuu yidhi gabadhan si fiicanna usoo jiido, kadibna guurso oo doon. saacado badan buu maalintaasi meel fadhiyay oo ku sugay. kadibna wuxuu arkay ayadii oo keligeed meel soconaysa. wuu u dhowaaday isagoo jirkiisu dhididayo, calaamado kala duwanna uu bixinayo. ugu dambayn fikirkiisiibuu u dhiibtay oo u sheegtay haweenaydaas, yacni gabadhaas, kelmado aad iyo aad u culusna wuu ku hadlay. wuxuuna ku yidhi, waxaan doonayaa inaan kula xiriiro. kadib waa soo fiirisay ayadoon wax kelmad ah ama eraya aan ku hadlin. wayna isgadisay oo waa laabatay. kadibna wiilkiibaa gacanteedii qabsaday oo wuxuu ku yidhi, ii jawaab, arrintan kuu soo bandhigtay ma igu waafaqaysa, ma igu raacsan tahay? wax jawaaba may soo saarin, aamuskeedii bay sii siyaadsatay. wiilkiibaa hadal kala soociyey, wuxuu yidhi, ha iga tegin, waxaan filayaa inaad iga tegay. muwaada arkayn buu yidhi xaaladdan ku suganahay iyo isgadgadiskayga. adigu waxaa tahay riyada aan ku riyoonayay gabadh-yahay. hurdadii baan ka tegay, maalin iyo habeen kala garan mayo, mana garanayo wakhtiga aan ku guulaysanayo waxa aan filayo. ha iga tegin, ii jawaab. jacaylkaygu waa adiga, wax kasta oo aan filaya waa adiga. maxaad u aamusan tahay? kadibna gabadhii madaxeeday hoos u foorariisay oo madaxeeday laabtay. kadibna waxay tidhi wiilkii iyadoo la hadlaysa, maxay tahay ilintaan? maxaad la ooyeysaa? ma waxaan ku idhi shay aad la ooydid oo maanaa ku caayo ku xumeeyey? ma shay ku dhiba ayaan kugu sameeyey? maxaad la ooyeysaa? ayaa wiilkii ku tidhi. hadalladaas ayaa ka soo baxay. kadib bay fiirisay eegmo, waxay ku eegtay naxariis leh. waxay tidhi, waan dareemay bay tidhi arrintaas. waxaa i dhalaaliyey jacaylkaada adii qabtid, laakiin bay tidhi ma awoodo inaan qisada tan iyo arrinta tan kula sii wado. wiilkii baa jawaabay, wuxuu yidhi, sababta aan iskugu xirnaanayno isu baranayn oo aynu isu guursanayn waa maxay? waa ku jeclahay. su-aal bay ku celisay wiilkii, miyaad garanaysaa bay tidhi, maalinna ma isweydiisay sababta aan kaaga jeesanayo aan kugu jawaabi waayey? wuxuu yidhi, su-aashaan in badan bay harqisay, laakiin jawaabi caafimaadisa ooma hayo. gabadhii baa tidhi, jawaabta anaa ku haya. waxay tidhi, qofkii aad jeclayd sax wuu kuu dhow yahay, laakiin bay leedahay jacaylka aniga laftirkayga aan kuu qabo wuxuu ii diidayaa inaan ku guursado oo adiga aan xiriirka guurka kula sameeyo, waayo uma dulqaadan karo inaan ku noolaado noloshayda xanuunka. waxay tidhi, yaraantaydaba laga soo bilaabo waxyaalo badan oo xanuuno ah ayaan la daala dhacay. markaa weynaydayna waxaan ogaaday in xanuunkaasi uu yahay inaanan dhalayn oo ilmo aanan qaadayn. miyaad u dulqaadan kartaa haweenay aan dhalayn haddii aad caqli leedahay? waxay tiri, orod iga tag, hana ii soo dhowaan. naftaadaad cadaabaysaa ee aniga haa cadaabi. waxaan isku kaaya keeni kara waa maxay? oo na kulmin karoon isku kaaya dhoweyn kara, waayo waxaan ahay haweenay aan dhalayn. in badanna ragga sidaas igaga durkeen. sax, anigu waan ku jeclahay, aniguba jacaylkayga ayaan qarsanayay, laakiin waa cilladaysan yahay. cilladaasna igu qaadan mayside, iga fogow. wiilkii si degdeg uu ku jawaabay oo wuxuu yidhi, oo yaa kugu yidhi inaan gubayo riyada noloshayda? wuxuu yidhi, anugu aad baan kuu jeclay, qalbigaan kaa jeclahay, ilaa aan dhimanayana waan ku jeclahay. gabadhii baa tidhi, maya, aniga ha ii nixin, mana doonayo bay tidhi inaad dhibbano u noqotid jacayl suulaya iyo xanuun dheer. marka waxba khiyaalayay riwaayadaha isku dhisine, iga fogow. wiilkii baa yidhi, waxaan ku dhaartay rabbi, anigu buu yidhi ma awoodo wax aan cuno iyo waxaan liqatoona. jirkayguna adiga ayuu kuu maahan yahay. waxaan doonayaa oon jeclahay inaan kaa maqlo ereyga ah waan ku aqbalay, wejigaadana farxad ayaan ka dareemayahay. gabadhii way dhoolla caddaysay, dhoolla caddays quusii muujinaya. isagii bay soo fiirisay, fiirmaya jacayl quus taagan. kadibna waa ka laabato, meeshii ayay ka dhaqaaqday. wiilkii waa soo ordo, waa soo noqday. ehelkiisii iyo xaafadiibuu ku soo noqday. kadibna wuxuu u sheegay reerkii wixii ka soo qabsaday gabadhii uu dooni lahaa. kadibna waxay dhaheen reerkii,
sideed ku doonaysaa gabadh kuu sheegtay ciladeedii oo ah inaysan dhalayn, dooni maysid gabadhaas mana guursanaysid ayay ku dheheen. isagiina wuxuu yidhi maya, madaxaday kasta iyo amardiid walba intuu soo agdhigay ayuu wuxuu yidhi maya, taasaan doonayaa, go-aankaygana waa ku taagnaanayaa ee miyaad igu taageeraysaan qoyskaygiyo. waxay xaaladdu socotaba markii dambe gabadhii doonitaankeedii ayuu soo bandhigtay. ehelkeediibuu ka doonay isagoo ehelkiisii ay ku mucaaradsan yihiin. kadib gabadhii reerkoodii waa siiyeen. iyaan buu la noolaa wiilkan gabadhan maalmo fiican oo qurux badan ayay wada noolaayeen oo farxad ku dhisan. waqti dheer iyo bilo badan ayay wada noolaayeen oo noloshaasi sii socotay, shay kastana ku socday sidii loogu talagalay, ayagoo leh alleelaa waxaan idii xaqiiqoobay riyooyinkii aad ku riyoonayseen. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii guriga intuu kusoo noqday isagoo raadinaya buug u muhiim ahaa shaqadiis ayuu si deg dega guriga kusoo galay. sida caadadiisana waxay ahayd markuu guriga soo galaba xaaskiisa magaceeda inuu ugu yeero, kadibna markuu magaceeda ugu yeeray wax u jawaabo waa waaye. sidaasna iskuma sii dareensiin oo waxaan isiri buu yidhi reerkoodii gurigoodii oo aan naga fogeyn ayay jirtaay oo aaday, ama suuqay wax u doonato kasoo iibsanaysaa. sidaas ayaan isku raalligeliyey buu yidhi. qolkaygii hurdadaan galay anoo buuggii aan raadinayay ka doonaya, kadibna meeshan waxaan ku arkay bay waraaqad aan la yaabay oo hore aan u arag. waan fiiriyey, waan furay, waan akhriyey, kadibna waxyaala ku sasawiran ku qorqoran ayaan arkay buu yidhi. kadibna gabadhii ordaysa ayaa ii soo gashay buu yidhi oo waraaqdii aan akhrinayay si xooga igaga qaaday gacantayda. waxay tidhi yaa kuu fasaxay waxyaala aniga ii goonidaa inaad akhrisid oo aragtid. ninkii waa yaabay, wiilkii waa yaabay, wejigiisina inkiraadba ka soo muuqatay, wuuna fadhiista isagoo la yaaban samayskeedii. madaxuu gacanta saartay, wuxuu yidhi erayada kan ay ku isticmaashay xaaskaadu ee maanta ku cusubi waa maxay? ujeedka u isticmaalaysa waa maxay? dareemayaasha noocan iga hor keentay waa maxay? maxay waraaqdan igaga qarinaysaa? ma qof kalaa jira? ma qof kale ay raadinaysaa? ma hilmaantay jacaylkaygii? su-aalahaasaan isweydiiyey buu yidhi. ma waxay ku daashay dhallinyaronimadayda? maya ayaan isiri buu yidhi oo naftayda ugu jawaabay arrintaasi xisaabta kuma jirto. madaxayga waxaa garaacay su-aalo aad iyo aad u badan. masayrkaan u masayrayna aad iyo aad buu ii hareereeyey. mar naftaydaan beeniyaa, marna waa rumaystaa, laakiin shakigaa igu sii batay buu yidhi. mana raadin buu yidhi wax bari yeelaya. kadibna wuxuu bilaabay wiilkii haweenaydii inuu ciriiri geliyo. wuxuu u diiday inay guriga ka baxdo, saaxiibadeed inay aragto ayuu u diiday. caalamkii oo dhan buu ka casilay. hadal ma jiro, salaam ma jirto, ayaduna ma garanayso sababta arrintaa ka dambaysa. maalmo ayay arrintaas socotay. maalinta ka dambaysana arrintu waa sii siyaadaysaa. qalbigiisu waa buuxaa, waxbuu soo tufayaa, laabtiisuna waxaa ku wareegaya shar iyo shaki badan. sidee yaqiin ku gaari kartaa iyo hubaal ayaa qalbigiisa ku wareegaysa. kadibna waxaa qalbigiisa kusoo dhacday arrintaasoo tilmaamaysa inuu tijaabiyo xaaskiisa. haddii arrintaa ku guulaysato qalbigaada waa degaya, hadday ku fashilantana qalbigaadu waa sii ololayaa. wax kasta oo agtaada yaalana waa sii qarxayaan. maalin maalmaha ka mid ah saaxiibkiis oo is yaqaaneen ayuu la xiriiray. arrin bayna wada degeen. saaxiibkiisna wuxuu bilaabay inuu xaaskii la soo xiriiro iyagoo labadooda isku og. kadib fariimo usoo diraa, hadallada u jilciyaa. hase yeeshee wax jawaab ah wuu ka waayay. aamus bay ku dishay iyo inaysan fiirin fariimihiisa. hase yeeshee ololka masayrka kama degin weli laabtii ninkeeda. ninkii saaxiibkiisa ayuu wuxuu ka dalbaday arrin aad iyo aad u yaab leh oo shaydaan u degay. maalin maalmaha ka mid wuxuu ku yidhi niw adiga ay daaweyn karee waxaad aadaa gurigayga, anna waa kaa dambaynayaa. markaad albaabka gargaraacdid oo ay kaa furto hadalla kula hadal jiljilicsan, waxay kugu soo jawaabtana ayaan fiirinayaa. waa waddada keliya ee ii hartay buu yidhi ee noloshaydaan ku dejin karo. haweenayda gurigeeda iska fadhida oo ninkeeda sugaysa inuu u imaado, albaabka lasoo garaacay. albaabkiibay si deg dega u furtay. kadibna ninkeeda saaxiibkiis weeyaba wax albaabka taaganba. waxayna ku tidhi maxaad doonaysay? maxaa halka ku keenay? intuusan u jawaabin ayuu wuxuu guda galay inuu u dhowaado. kadibna waxay dareentay eegmadiisaan shaydaanku usoo alifay. gadaal bay u riixday bannaanka, kadibna waa soo baxday ayadoo qaylinaysa. iyadoo ordaysa ayay meesha jaranjarada ku kuftay. ninkii saaxiibkiisa ha wuu yaabay, cabsi baa soo wajahday. si deg dega ayuu damcay meesha inooga baxo. waxaa imaaday ninkii gabadha qabay isagoon ogeyn waxaa meesha ka socda. hase yeeshee mashayrkiisii iyo howlihiisii iyo shakigii qalbigay ku dhex laalaabanaya. kadibna wuxuu arkay xaaskiisii oo dhulka taalla oo wejigeedu dhiig ka socdo kufkii ay kuftay daraaddeed. kadibna uu soo dhowaaday, mana rumaysan wuxuu arkay. muxuu sameeyaa? maxaa dhacay? sabab bay u noqotay gabadhaas dhacdada noocaasa inay ku nafbeesho ku dhimato. ninkeedii baa soo qaabilay, kor buu u qaaday, balsuu isu dhaho bal naf miyaad ku jirtaa? laakiin waqtigii waa dhammaaday. waxaana ku yeela dhaawac halisa, waayo jaranjaradii koray ka soo dhacday. hadalladii ugu dambeeyey ay tiraahdo oo ay ku neefsatay waxay ahayd naftayda aan kuu hiibeeyey calaamad bay u ahayd inaan ku jeclahay oo run ay tahay arrintaas ee ha hilmaamin. haddaad ii xiistina codkaygiina aad u hilowdid waxaad furtaa waraaqdaydii khaaska
ayay ahayd. waxaad ku arki doontaa codkaygii iyo waxyaala aad ugu xasuusan doontid. erayadaas way erayaday ku hadashay oo nafta uga baxday. indhuhu isku laabtay ninkeed, qalbi jabay iyo nolol mugdi soo wajahay ayuu dareemay. qalbi uu dilay jacayl, bal masayr uu dilay. wuxuuna ogaaday halkaas inaysan khiyaamayn oo ahayd haweenay aad iyo aad u jeclayd. horena waxaa loo yidhi jacaylka waxaa ka mid a mid wax dila. kadibna wuxuu gudagalay inuu aaso oo soo xabaalo. wuxuuna ogaaday waraaqdii ku beertay shakiga inay ahayd waraaq ku dhisnayn xaqiiqo oo matalaysay noloshoodii, kana sheekeynaysay jacaylka ay u qabto ayadu ninkeeda. qisadan ma ahan wax layskaga sheekaynaya iyo werintoona. cibro qaadasho ayaa noogu sugan. cibro qaadashaduna waxay ugu sugan tahay ragga. xaaskaadu ma aha nin yahow wax adigu aad iibsatay iyo alaabta guriga kuu taalloo kale. ma ahan xaaskaadu addoon aad dul saaraysid cuquubo iyo dhibaato kasta. tijaabo aad tijaabinaysid ma ahan. dembi aysa lahayn aad dusha ka saaraysid ma ahan. waxaad xasuusataa markay gurigoodii joogtay waxay ahayd haweenay qiimo leh. markay gurigaada timid qiimahaas laba jibaar u yeel. intaa keliya way mid tahay aynu ka waramayno ee qisadaanaynu soo qaadanayno.